waa ninkii hooyii aabba ii dhaleen oo laba xaniyooda ee Somaliland hees u soo qaado oo odol istayda hadalkaas waxaa yiri nimcaan hilaac fanaanka halkan kaaga muuqdo nimcaan sida ogsoontahay wuxuu ku sumadan yahay magaca Soomaaliyeed ee Soomaalinimada iyo calanka buluuga ah laga ma soo maro Soomaali sidaas oo ay tahay dhiig iyo dhaawac noo yaalo waxa jira fanaaniin reer awdal ah oo ka shaqeynaya inay heeso soo qaadaan Israa'iil iyo nimanka aadan yar Koonfurta waxay ugu balana anuwan kala gogo ee soo kala baxaysana ma aaminsano موقفك Somaliland aaminsan tahayna waa mid ka soo horjeedo waligiisna ka soo horjeeday waxa uu taagay dhalinyarada Odol State ee fanaaniinta maartay hodan haday tahay mursal aduu yahay Ismaaciil Daran aduu yahay mid hees u soo qaadi kara malaan aysan America la kala furnayno kuwa anooda America oo joognaa anaga iyagu waa isma isku diibayna wallahi oo billahi oo talaahiya iyagoo dhiig iyo dhaawac noo yaalo dhimasho noo talay hadda midka la aasi ninka waxay arkayaan muxuu ahaay tala aysan arkayaan ka bacdi ninka odayga waxa u soo jawaabay Ismaaciil Daran ayaa u soo jawaabay oo leh studio-ga meel ku yaalo waa taqaanaa hadii aad rabtid inaad dacweyso inaad aniga xabsi inaad geyso hadii aad rabtid oo noloshada inaad burburiso hadii aad rabtid de waad sameyn kartaa cid ka hor taagan ma lahan qofka ku dhaga hadlaysana waa aniga iyo saddexda kale toole si caada noogu soo bareer nimcaan hilaac marka laga gar helay oo macnaa la yiri ma cadow baad ii dhibi rabtaa gaala rabtaa inaad ii dhibto aniga oo inaad adeerka sheeganaysid nimcaan hilaac aleelehe gartu waa u qaatay si raganimo leh ayuuna u raali galiyay oo uu yiri xanaaqa iyo kulalka ayaa iga keenay mar la rabo walaalahayga in ay ku dhacaan god macnaha laag bari ay ka shalaayaan oo meeshan macnaha laag Soomaali u horseedaan kala go inay u horseedaan maadaama aad tihiin fanaaniin waaweyn ee Soomaalina ay ku tashanayso waxaan rabaa godkan si aan kaga badbaadiyo ee hadalka ayaa iga qaldoomay waa idin salaamaya peace and love bye bye